وضع يدوي غمي حنون مواياني ودنيا سبب وذا ودنيا سبب وضع شقينا يوم يدوي غمي حنون يدوي غمي حنون kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan muuqayaga iyo codkaygu idiga soo gaarayo ee shaashada BC24 TV aad ka daawanaysaan waa barnaamijkii hibada hal abuurka oo barnaamij ayuu ka sii xiiso badan yahay barnaamijka ka dambeeyo goobtan ku sugannahay waa beerta libaaxiyada oo maasha Allah maanta aanu ku qaban doono barnaamijka waxa marti iigu ah barnaamijka isla markaana aan ka faalan doona kana wareysan doona Yaasiin Daahir Cumar Yaasiin horta ku soo dhawow barnaamijka hibada hal abuurka iyo waliba shaashada Badacas 24 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد آد بعد ما حصلتها إلى ديوسو دويسو هرجيسا يو معناه تلفزيون كبدع عص آد بعد فرح سنين أنا كقلقاته برنامج كان عمر والبان كداون جري أم بشاشة ده وأنا كفرح سنين أنا كله كلمه هذا حمدية إن أنا قلنا وان كاجم هذا علينا Yaasiino inaad naga soo aqbashay isla markaana inta ballankii noo soo ajiibtay aad noogu timiday barnaamijka aad baan kaaga mahad celinaynaa aniga iyo gudoomiyaha dhammaan bahda BC24 oo isku duuban waa mahadsantahay baa ku leenahay intiinana u guda gelin barnaamijka iyo waliba buuga quruxda badan leh ee labada luuqadood ee kala kaanka ah aad ku turjuntay nuxurkiisa intiinana u guda gelin Yaasiin waa kuma Yaasiin Daahir Cumar waxa weeye waa nin Soomaaliland u dhashay kuna dhashay Muqdisho waxa weeye dugsigeygii hoosana waxaan ka baxay Muqdisho kii sarana waxaan ka baxay dugsiga beeraha Afgooye waxaan bartay kadibna waxaan galay macnaheedu dugsiga xisaabaadka ee Paris kadibna maamulka iyo maareynta Paris Yaasiin Daahir waxa weeye waa macnaheedu nin sidiisaba u dhashay Muqdisho u dhashay Soomaaliland kuna dhashay Muqdisho waa tahay Yaasiin baranay Yaasiin waa qoraaga buuga la yiraahdo ninkii qaxoontiga iyo laantiisa dahabka bal horta inteenan ubad guda gelin baax Yaasiino halka shaashadana waxa ka muuqda Badacas doontii iyo tahriibtii iyo dadkii oo daadanaysa bal in yar oo kooban horta waxa sharax naga siisaa magaca ninka qaxoontiga iyo laantiisa dahabka ninka qaxoontiga iyo laantiisa dahabka horta waa qisad dhaba oo ku dhacday Soomaaliland qisadan horta waxa weeye waxyaalaha ugu cajaa'ibsan nuxurkay wadato ayaa waxa ah macnaheedu su'aalo badan oo dadka isweydiiyaan ma nasiibka dadka badbaadiya mise garashada marka buuggan horta waa buug macnaheedu aad u qoto dheer qisadaba iguna qaadatay dabagalkeeda 7 sano oo aad uga soo shaqeeyay kadibna qoraalkeeda Faransiis ahaan markay ku soo baxaysana uu qaadatay 7 bilood marka buuggan waxa weeye qofkii macnaheedu akhriya wuxuu fahmayaa in macnaheedu dhan walba ay taabanayso sheekada haday noqoto dhaqanka haday noqoto tahriibka haday noqoto jacaylka haday noqoto macnaheedu waxbarashada marka ninkan aan magaciisa siiyo Takar waxa weeye inteenan weyn u soo noqonaynaa gudaha buuga iyo waliba maxaa la yiraahdaa in sheekada quruxda badan leh ee ku duuban waxaan doonayaa Yaasiin oo inaad noo yar sharaxdo ninkii maxaa raahdaa qaxoontiga ahaa diilaantiisa dahabka bal magacaas oo kaliyaata sida aad ku dooratay magacaas oo jiidashada leh ee waliba labada luuqadood ee Faransiiska iyo Soomaaliga aad ku qortay horta waxa weeye markii hore buuggan wuxuu ku soo baxay Faransiiskana waxa lagu yiraahdaa Amigrant avec sa palme d'or waxa weeye ninkii qaxootiga laantiisa dahabka horta qisada macnaheedu laantu say dahab ku noqotay dadka waxa macnaheedu soo qabtay erayga ugu badnaa soo qabtay ayaa wuxuu ahaa ninkii qaxootiga iyo laantii dahabka oo waxyaalaha isu qaban waayay nin qaxooti si inuu sidoo laan dahab ku helay marka qofka markii erayga uu dul istaago wuxuu ku qasban yahay ama macnaheedu isku dayaa inuu ogaado qisada dhabta ah marka laantu waxay dahab ku noqotay inan sidaas oo kale soo tahriibtay Muqdisho ka soo tahriibtay ku soo silecday macnaheedu Suudaan saxarihi markii dambana magafayaashu ay macnaheedu jirdileen ayaa waxa dhacday mar alla markay doonta raacisay waxay qaadatay laan ay dhulka ka qaadatay oo ahaa
laanta macnihii timirta laantaasoo macnihii ay isaga celinaysa cadceedda milicda kulul meeshuna waxa weeye waa saxare 50 degree weeye cadceeddu milicda iyo milixda markay isku darsamtana waxa weeye dadka haraga ka dhaca marka sidaa daraaddeed laantaas bay macnihii waxay mooday xal si ay cadceedda isaga celiso markii ay sii dhiman rabtayna laantii waxay u dhiibtay ninkan la leeyahay takar waa laanta badbaadin doonto wax walbo macnihii nafta badbaadiyana ka qaalisan dahab saasaan ugu baxshay laantii dahabka waa tahay waa sheeko cajiiba isla markaana magaceedu iyo kaliya taanigii daawadayaashaba yaasiinona soo jiitay bal aynu u gudagalno sheekada waxaad igu tiri 7 sanadood ayay igu qaadatay sidan u raadinayay bal 7 sanadood ka hor sheekadu sidii adiga kugu soo gaadhay sheekada horta waxa weeye sidaynu la soconno Baaris baan deganahay Baaris 30 sano ugu dambeeyay halkaasaan ku noolaa nasiibna waxaan u yeeshay inaan macnihii wadanka dego intuuna dagaalka dhicin ka hor inaan deganaado oo macnihii wadanka intaan laga qaxin marka Baarisna waa meesha macnihii Yurubta bartamaheeda oo qof walba uu tagay Yurubta kale uu sii maro iyo kameel walba ka imanayo waa meel macnihii xudun ah sida daradeed mid kalena Baaris sida inuu ognahay waa meesha kuwada adduunka dalxiiska loo tago sanadkii waxa taga 80 milyan baa taga 89 milyan baa la leeyahay baa taga ayaa u taga dalxiis marka dadka ku dhaxnool waxa ka badan baax dadka imanaya ka badan ha marka waxa ii saamaxday meel macnihii maaragtay bartamaha maadaama joogo inaan dad badan la kulmo ay kamid yihiin qaxootiga dadka siimar iyo dadka soomaraba marka sideedana macnihii waxaan ahaa qof macnihii u dhagownay qisooyinka iyo macnihii sheekooyinka taasaana macnihii igu kaliftay inaan macnihii qisada helo waana tii saamaxday in macnihii aan wax ka qoro dad qisooyin kala duwan way jiraan waa tii igu xiiso badnayd iyo kuwa macnihii murugana waan hayaa buugaa kaloo diyaaran waa jira oo hadda aan daabicin laakiinse aan isleeyahay daabacdi hadii ilaahay raado waa buugii kugu horeeyay ee aad daabacdo isla markaana sadii sheegtay waxaad igu tirtay 7 sano ayay baad goob ugu jiray sheekada nuxurkeeda inaan ogaado miyaanay kugu noqon culays maadaama igu tirtay 7 bilood oo kaliya tax ayaan buuga gabigiisa ku soo saaray taankiisu maadaama uu ahaa buugii kugu horeeyay qalin iyo warqad inta u qaadaad tiraadeen daabaco horta wax walbood macnihii waqti geliso waxa weeye macnihii mira ku dhalan dab ahaantii waqti baan geliyay waqtigaasna waxa weeye wax kale oo bay iga bixi lahaayeen marka taana waxa weeye waa qiso aan macnihii ka helay oo siri bal macnihii aad gaartid macnihii qisada dhabta aad soo taabatid taana waa tay igu kaliftay inaan 7 sano daba galo aan tago meel kala duwan ay kamid tahay macnihii Liibiya ay kamid tahay Talyaaniga ay kamid tahay Switzerland ay kamid tahay Faransiiska Ingiriiska ilaa Rwanda marka anoo raadinaya qisada macnihii dhabteeda waa tahay kulay labada buug waxay ku qoran yihiin laba luuqadood qolo kastaaba luuqadooda garanaysa waxaan jecelahay isla markaana ka codsanaya nuxurka sheekada adiga oo daawadayaasha fahansiinaya inaad kolba midba luuqad in yar intaad ka soo qaadato si daawadayaasha xitaa kugu xidhan ee luuqada Faransiiska garanaya iyaguna ay u fahmaan barnaamijka oo qayb ka noqdaan maadaama barnaamijku yahay barnaamij bulshada oo dhan kulmin kara isla markaana YouTube-ka cid kastaaba markay aragto buugii waxa Yaasiin ka sheekeynaya igu dhafay dhaahdo iyo sheekada nuxurkeeda adiga waliba qaybta Soomaaliga igu horeynaya Yaasiin waxa weeye horta buugan macnihii xamdi waad ku mahadsan tahay ninkii qaxootigii laantiisii dahabka sheekadana waxa weeye waa nin u dhashay Soomaaliland markii dugsiga sare uu dhameeyay ayaa qabiilkiisa dadkii ugu dhibcaha badnaa ayaa waxa u direen Hindiya magaalada Hyderabad si ay wax u soo bartaan marka anigoo dhankaana ka tusaya qabiilka lafsirkiisa inuu caqabad ahayn oo marmarka qaarkood wax badbaadin karayo taas bay na tusaysaa markii 7 sano wax ka soo bartay isagoo faraxsan oo hididiile ku jiro ku soo laabtay Soomaaliland waxa dhacday 3 bilood markuu joogay kadib shaqo helay shaqadaas tiisi ugu horeysay una aad ugu faraxsanaa 7 sano uu joogayna waxyaalaha macnihii ninkan uu aad macnihii nin maskax leh u ahaa waxa kamida 7 sano wadanka uu joogay wuxuu bartay afindiga anigoo dhankaana macnihii ku baraarujinay dhalinyarta meel walba joogan inay luqadooda bartaan waa muhiim
sida keliya dadka ku dhexgeli karaysa aad wax ku fahmi karaysa waa inaad luqadooda barataa marka luqadu macnihii waa waxa laftirkeeda dadka isku fahmaan halka anoo kasii wadanaya waxaan leeyahay inankii markuu yimid 3 bilood uu joogay ayuu shaqo helay shaqadii isagoo macnihii ku faraxsan 2 sano markuu ka shaqeynay ayaa waxa dhacday wadanka Soomaaliland iyo meel macnihii dadka dhaqanka Soomaalida leh ninka dhalinyarada markuu 30 gaaro uu shaqaysto erayada ku soo laabtay ugu badan waxa weey war goormad guursan doontaa oo mar walba lagu soo celceliyaa iyadoo macnihii ku noqota macnihii laftirkeeda maaragtay caqabad ku noqota marka nin saaxiibkiisa wuxuu ku yiri caawa inaan walaashay la guursanaya marka hadaa doonaysa in calafkaaga ka soo hesho bal caawa ka faa'iideyso wuxuuna ku soo laabtay Hargeysa indi ka yimid 3 bilood markuu joogay ayuu shaqo meesha ka bilaabay shaqadii ugu horeysay uu ka bilaabay 2 sano markuu ka shaqeynayay ayaa inanka saaxiibkiisa wuxuu ku yiri arooska aan tagnay arooska haba tagaane waa nolosha ka mid tahay inuu qof walba macnihii sidoo noloshiisa macnihii ku dabara waxa dhacday maalinka habeenimada uu tagayo arooska aroornimadeeda ballan buu lahaa oo ah inuu dalab macnihii waxa jiray sokor la'aan baa wadanka ka jirtay shirkadu u shaqeynayna waxay ahayd shirkad macnihii cunto daruuriga ka baayac mushtarta marka duufaanada daraadood iyo macnihii burcadka daraadood waxa dhacday inay jirto sokor la'aan baan marka shirkada ugu soo hormartay shirkada keenta sokorta waxay noqonaysaa shirkad guuleysatay iyagoo daba socday 6 bilood ayaa waxa dhacday habeenkii arooska markuu tagay arooskii macnihii ruunay raxle laga raaxaystay qof walba iska soo caweeyay 4 habeenimo markuu saaxday wuxuu ka dhacayay hoteelkii weynaa ee magaalada Hargeysa laga yaqaan Panorama meeshii baa lagu kulmay ninkii gabadhii uu ka helay gabadhii umayna saamixin inuu macnihii barto laakiin si wuxuu isku dayay inuu macnihii daba galo uu arko meeshii degan tahay habeennimadii mar alla markuu ku soo laabtay xaafadiisii ayuu xishiri maadaama 8 ballan leedahay in macnihii sokortii dalabka in macnihii lacagtii la diro ayaa waxa dhacday in ninkii hurdo dheer uu galo gam'aba marka wixii 6 bilood la daba socday iyo wixii dhamaa inay noqdaan hal bacad lagu lisay nasiib daro mar ay xeeray fandhal kala dhaceen buu ka soo kacay koodii doornimo ayuu wuxuu u yimid shirkadda markaas waxa lagu yiri meeshii iyo shaqadii lagu diray iyo macnihii dalabkii halkay ka baxday markaas uu yiri hurda ila tagtay markaas waxa la yiri hurda kulamay tagine kontraadkii waxa siisay qabiilkaaga marka taana waxay tusaysaa in qabiilka laftiisa caqabad yahay isagoo ina macnihii marna qabiilkiisuna waxba siin laakiin sheeko walbo macnihii maaragtay gurcan waxa la yiraahdaa qabiil bay sal ku leedahay si kastaba ha noqotay waxa dhacday ninkii in maaragtay shaqadii laga eriyo la iskuna dayo in la dilo laftigeeda iyadoo macnihii la leeyahay 1 milyan iyo 200 baan garab marisay dhanka kalena wuxuu isku dayay inuu inantii hodan uu la kulmo oo macnihii yiraahdo inayo ku doonaya maxaa tala oo macnihii maxaynu sameynaa iyadna waxay tiri hadaad macnihii hadii aad wax isku hayso fagaara iskeen aan waxaan u joogaa waa in la dhaqdaa si kastaba ha noqotee markii ay macnihii uu doontay oo ergo u diray inantii ayaa waxa dhacday ergadii inay loo sheego in la yiraahdo macnihii maalinkaas la iman doona inantii weynoo doona tahay sidaasina arrintu ahayd maalin maalmaha kamid ah ayaa ninkii inaadeerkiis oo qurba joog oo London ka yimid ayaa wuxuu yiri adiga inanta saaxiibta inanta mustaqbalkaaga waan id casuumaya inantana waxaad ku tiraahdaa inan kale saaxiibta soo kaxayso habeenkii sidii baa lagu casho tagay fishan steak house bay ku casho tageen si wacan bay u dhacday nasiib daro waxay noqotay ninkii takar ee sheekada ku siisay in gabadhii laga farmaroojiyo uu ka farmaroojiyo ninkii adeerkiis ahaa inantii hodan ahaydna ay ku raacdo ninka kumayna raacin macnihii aqoon ku tuhmayso aqli ku tuhmayso
caqabadaha wadanka jira ayaa waxay tahay dadka badankooda ilaahu meesha kaa xawil iyadna waxay ka mid tahay dadka macnihii doonaya inay meesha ka tagaan baasaboorkaasun taasaana macnihii keentay macnihii in maaragtay dadkoo dhan baa doonaya inay tagaan iyagoona ka warhayn dhanka kale wax uga horeeya xaggay ku socdaan marka buuggan laftigiisa wuxuu u saamaxayaa inay fahmaan meesha ay tegi doonaan iyo waxa kaga horeeya iyo waxa ay haystaan marka qofka wuxuu miisaami karayaa waxa uu haysto iyo waxa ka maqan marka buugga laftigiisa daw u noqonaya si kastaba ahaatee sheekadu waxa weeye markii ay macnihii ninkii sidii looga faramaroojiyey ayaa waxaa isugu tegey ninkii oo shaqo beelay gabadhii jeclaana laga faramaroojiyey midda kalena dadkiina isku dayeen inay macnihii dilaan ayaa waxaa dhacday kuwii walaaladii inay yidhaahdaan waxaan kuu diyaarinaynaa hub habeenka arooska la dhigayo digada ka dhig macnihii saasa baabi'i iyagoo macnihii mar walba dareemaya macnihii in la bahdilay inankoodii si kastaba ha noqotee nin caqli badan buu ahaa wuxuu yidhi dhiig ma qaadi karayo mana geli karayo marka waxaa la ii doorbiday inaan doontaa raaco waa sababtii macnihii keentay uu ku tahriibay keentay inuu waddanka ka tago marka dad kala duwan baa ku jira buugga uu ka mid yahay ninaan u bixiyey wifi ninka wifi wuxuu ahaa ninka lumaysata ah oo qandaliya calula macnihii iyo isku shuban dhanka macnihii puntland ka kalumaysta baryahan dambe waqtiyada aan ka sheekaynayo waxaa jiray macnihii kalumaysi bilaaxada ay doomo waaweyn ay yimaadaan ay xaalufiyaan badda marka qof alle qofkii isku daya inuu ka hor tago macnihii doomaha waaweyn waxaa la oran jiray waa la qabtaa waxaa la yidhaahdaa burcad baa tahay nin dibad lagu xidho nin la qaato nin meelo kale lagu xiro nin la dilo iyo nin macnihii waddankiisaba lagu bahdilo marka ninkaa laba mid baa usoo macnihii u furayd in ninkan macnihii wifi aan leeyahay labada macnihii u furayd waxay noqotay inuu isaga tago iyo inuu macnihii burcadka hubka qaato ku biiro marka wuxuu doorbiday isagoo lix walaalo ah la dhasheen inuu quudiyo ayaa wuxuu doorbiday inuu macnihii ka tahriibo ninkaasna waa ninka doonta ka noqon doona naaquude marka laftirkeeda anoo tusaya dad kala duwan iyo inantiibu ka timid iyada laftirkeeda muqdisho iyo nin kale macnihii PhD ka soo qaatay Australia waqtiyadii 80 isagoo macnihii awooda inuu Australia ama Malaysia ka shaqeeyo ayuu wuxuu doorbiday inuu wadankiisa ka shaqeysto oo Soomaaliya markaa bariga caqabadihii ka soo kixiyay wadanka ayaa waxay ka mid ahayd waxaa laga soo diraa dad baa laga soo diraa macnihii Nairobi waqtiyadii dambe dagaalka dhacay iyagoo ku soo qarash gareeyay ilaa 150,000 diyaarad private la soo qaato iyo macnihii koox macnihii maaragtay difaacada oo askar difaacada macnihii markay muqdisho yimaadaan barnaamijka u socdaana ay tahay inay macnihii sanad walba caqabahan baahidan soo laabanaysa inay ka hortagaan markaas wuxuu yiri lacag badan baad gelinaysaa macnihii diyaarada iyo waxaan maaragtay loo baahnayn dhibaatada dhabta ana waxaad siinaysaa waxaan u qalmin markii halka isdul taaga ayaa waxay noqotay in loo sameeyo dad cadow oo isku daya inay dilaan muqdisho ku dhex dilaan marka xaaskiisa ayaa wuxuu ku tiri inta ciyaalkayga macnihii agoomo noqon lahaayeen iska tahriib isla waa dhibaatada macnihii ku kaliftay inuu ka soo tahriibo dhulkiisa isagoo jecel oo marka horeba uga tagay Australia inuu dadkiisa wax geliyo waa nasiib darrada macnihii oon isgaranaynin ayaa dana mid kastaba sabab soo tahriibis ayaa doontiis ku goymay aan ka dhex galo Yaasiino mis oran karnaa marka buuga marka luqadii Faransiiska ku turjuntay waxa halka ka cadaatay in dadku sababta u tahriibayaan ay duruuf tahay waxa weeye ta ugu weyn macnihii aan u qoray ayaa waxay ahayd inaan ka dhaadhiciyo dadka Faransiiska iyo dadka Yurubiyaanka la yiraahdo iyaga laftikooda lagu maran habaabiyo waxa lagu maran habaabiyo waxa la yiraahdaa dhalinyarta soo socota waa kuwii diintiina bedeli lahaa dhulkana idinka qaadi lahaa urura ka dambeeya lacag soo siiya
oo doonaya inay waddanka ku beeraan marka anoo u caddaynaya duruufaha saxda ah ee meesha ka soo kaxeeyey oo tusaya sawirka saxda ah ayay waxay fahmeen in macnihii dadkani aysan ahayn dad macnihii lasoo diyaariyey laakiinse caqabada dhaba duruufo macnihii aad maaragtay qof kastaba dee waayihiisa soo kaxeeyey qof walba waayihiisa soo kaxeeyey waa sidaa marka dadkii markay akhriyeen bay waxay yidhaahdeen fikraddeena waxbaad ka bedesha marka iyadna waa guul loo soo wada hooyatay wey hambalyo ayaan ku leenahay yaasiin anagii dhammaan BC 24 iyo daawadayaashuba maadaama dhaqan dhan oo la aaminay aad ka bedeshay isla markaana qof kastaba duruuf iyo waayihiisu inay doontaa saarayaan aad ka dhigtay hambalyo baan ku leenahay hay sheekadii noo sii mahadsanid waxaa dhacday horta sheekadii idin dhammaan maayo waxa weeye ujeedada dadka laftirkooda waxa weeye ujeedada laftirkeeda macnaheedu dadka waxa weeye si aynu kor ugu qaadno waa inay buugaagta akhristaan si macnihii maskaxdooda laftirkooda u furmato qof waa qof uu ka akhris badan yahay ka aqoon badan marka waxa weeye markaad qorayso buug waxaa marka ugu yar sida la yiraahdo dadka macnihii culimada darsay aqoonta waxay leeyihiin marka qofka buug qoraayo marka ugu yar yahay waa ilaa ugu yaraan kun buug oo kala duwan waa inuu soo akhriyo mabaande marka sidaa daraaddeed dadka waxaan leeyahay horta aqoontu waxa weeye waa akhriska iyo baabaha marka iyada laftirkeeda sheekooyinka meelo wanaagsan oo macnihii markuu Switzerland tago inan yar oo macnihii 16 jira oo cadaana ayaa waxay bahadilaysaa ninkii PhD-da ka soo qaatay sideetameeyadii Australia ayaa waxay tusaysaa suuliga sidoo u isticmaali lahaa marka taa laftirkeeda waa waxyaabo dadka badankooda dadka doonaya inay tahriibaan ay soo ogeyn marka mar walba waxa la isbarbar dhigaa waxaad haysato iyo waxa ka maqan marka dadka badankooda waxaad moodaa inay soo ogeyn waxa ka maqan laakiinse ay garanayaan waxa ay haystaan kaliya marka buugan wuxuu u saamaxayaa ninkii qaxootiga ilaantiisa dahabka inay fahmaan laftirkooda waxa ka horeeya waa tahay كل سرتو بوجي كقرن تاي لكن شكله نحركدي أنتي وهريسي ياسين وكاسو ينور شيء سو تابعادي سهر جسلا جميع هلايو ياسين وينو متعال ما تابعادي سي وحوي واحد تابعادي شركة سجلجت وأنا ما أدري يقول لك كذا لكن بوجي سلمي هلايو واللي هلايا هذا آخر استود داوضيا يوجسو هجاجية واحد لقيه لك كرا مكتبية هرجيس ولم بلقيه لك كرا بدن كودا أنا مقعابي قاركود معنيه ريد سي بوك شوب كوكله ولا جهلا الحسيني مكتبة الحسيني ولا جهلي كريا iyo macnaheedu meesha u dhow jaamacadda Hargeysa ee la yiraahdo mahad printing la yiraahdo waa laga heli karaya marka qof walba isku dayay inuu maktabadaas tago si fudud buu u heli karaya hadda aan waa tahay waxaan rajaynayaa daawadayaal sheekada quruxda badan leh idinka iyo anaga oo inoo socotay inaan ka faa'iideysano isla markaana balbuugaas halka isla mareen laanti dahabka hayd iyo ninkii qaxoontiga ahaa halka isla maray balayno eegno in yaasin waxaan siin doonaa Jaanis inta ugu dambaysa barnaamijka isla markaana uu ku sharixi doono afkii ugu horeeyay iyo luqadii ugu horeysay buuga ku qoray laakiin yaasin markaan israaday yaasin maanta muxuu haayeen waxyaabo kale oo qoraalka ka baxsan buu jecel yahay maxaan is oran karaa yaasiin uu jecel yahay amba uu xiiseeyaa yaasiin horta wuxuu jecel yahay fankiga suugaanta oo laftirkeeda horta waan jeclaa inaan heeso laakiinse waa dhinac maro cod malihi nasiib darro sax weeye laakiinse iyada laftirkeedu markaa buug la qorayo waxay ka mid tahay suugaanta fankiga suugaanta ka mid tahay oo macnaheedu waxa weeye waa hiil aan u hiilinayo macnaheedu dhaqankayga iyo suugaantayda laftirkooda marka macnaheedu buug Faransiis aan ku soo qoray aan ku qorayo macnaheedu maaragtay hees qaaliya oo doc kasto la eego nolosha dunida waa dabkii haduu dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa waa tilmaam la daaho degdeg kuma haboone adoo degan u fiirso ujeedada ideeqsi marka waxa weeye taalibsigeedu waxay ku tusaysaa inaan ka iibinayo dadka macnaheedu ajnabiga ah dhaqankayga buugga waxyaalaha kale ee macnaheedu meesha ku jira laftirkooda macnaheedu aan ka iibinayo waxa kamid ah dadka waxaysan ogeyn badankooda in macnaheedu dadka maaragtay ka soo jeeda geeska Afrika
soomaalida la yiraahdo jinsigooda in macnihii dad dhaqan fog ay yihiin waxaa macnihii badanaa waxaa dhici jirtay qarnigii 13aad in hindiya iyo macnihii yurubiyaanka aan kala haynay oo macnihii aan ahayn dad maaragtay macnihii u dhaxeeya waxa aan hindiya ka soo iibsano aan ka sii iibin jirnay macnihii yurubiyaanka markay qarniyo sidaas ku socotay ayay waxay ogaadeen yurubiyaanka inay macnihii hindiya jirto markii dambe ayay xiriir la yeesheen ganacsi inta hore dad waxaan ahayn ka baayac mushtara oo macnihii taariikh dheer leh marka dadka badankoodna waxaa ma oga waxaana keenaysa macnihii aqoon darrada oo ugu horeysa akhris la'aanta marka taana waxaan ku baraarujinayaa in qof walba akhristo waa takriir ku saamaxaysa maskaxdaada inay furanto waa tahay yaasiin waxaad igu tidhi hargeysa muddooyinkii ugu dambeeyey sanadadii weliba 30 sano inaad ka maqnay isla markaana imika timiday dhowr bilood ka hor bal ka waran waxyaabihii kugula yaabka badnaa eed ku aragtay wadanka waxyaabihii ku soo kordhay bal iyadana والله horta wadanka waa wadankeygii waxa weeye quruxdiisana waa quruxdeeda fulxumadiisana waa fulxumadeyda waxyaalaha macnihii ajaa'ibka ugu badan waxa weeye waa dad wadankooda quruxsanaya markaad ka timaado oo uskaga iska guraya iyo anagoo uskaga dhulka ku tuurayna waxyaalaha ugu ajaa'ibka badan macnihii dadka macnihii lala yaabo waxyaalahaas ka mid ah in qof walba waxa uu isticmaalo dhulka ku tuuro in macnihii meel lagu sugu ururiyo laga macnihii qof walba inuu u tuuro dhulkiisa waa quruxdeena weey waxyaalaha ugu ajaa'ibka badan waa taa weey markaad ka timaado dad dhulkooda macnihii nadiifsaday hagaagsaday quruxsaday iyo annagu dhulkeenii macnihii fulxumeynina taasna waa waxyaalaha ugu ajaa'ibka badan weey waxyaalaha ugu macnihii ajaa'ibka badan quruxda badan ku faanana waxa weey in macnihii haweenka dahabka dibadda la fadhiyo waxa weey waxyaalaha ugu ajaa'ibsan weey ama New York tag ama Paris tag markaad galayso dukaan dahaba 3 albaab oo kala xiran bad dhaafisa marka saamisu iyo hub haysta la jooga marka tanna waa wax lagu faano oo u baahan in la sii qurxiyo oo meeshooda lagu hayo waana takriir lagu iibin karayo macnihii laftirkeeda quruxda wadankeena uu leeyahay iyo qiimaha sax waa tahay waa nabadda lagu caanamaalaa yaasiinow waxaad igu tirfankiisa suugaanta weli waan ku dhex jiraa waan jecelay isla markaana inaad heestaaba jeclaay muxuu ahaa aad niyadda ku haysay heesooyinka ugu badan ee jeceshay inaad dhegeysato amba caawisa BC24 aad ka codsan lahayd in shaashada lagaaga sii daayo mar kastana aad dhegeysato maxay tahay amba fanaanka xiiseynaysaa fanaanada dhan horta soo kamid waan wada jeclahay gebigoodba laakiin heesaha itaabanayo waxa kamid ah sidaan ku sheegay doc kasto leego nolosha dunida waa dabke الله نحرسته هدانا قلدمين وحوي وحسن الشيخ مؤمن جنادي إلهي كورابي ونن دحلنا وتجوي ومعنيه بلده بكجرة رقم كنا iyo halkan anoo ka salaamay mid kale macnaheedu boqorkii suugaanta iyo fanka Allah noo daayo hadraawi waxa weeye heesii hadraawi hooyay la'aanta adduunyada hubaasheed wax loo dhigo oo ilaa hadda ma hayo marka waa heesaan ugu jeclahay laftirkooda macnaheedu hooyay la'aanta iyaga laftirkooda waa wada jeclahay gebigoodba waa dad macnaheedu dhalinyaro ah waxa weeye waxaan leeyahay macnaheedu halka ka wada fankii suugaanta laakiinse waxaan leeyahay macnaheedu hal fariin baan u dirayaa macnaheedu heesaha badan ee la iska daba keenayo qiimo ma leh hal hees oo waarta isku day inaad soo saartaan taasna waa fariin heesahan bil kasta soo saarsan macnaheedu adigu baas aasay baa leeyahay macnaheedu heesta markay badato qiimo ma yeelato laakiin hal hees oo dadka dhan maskaxdooda gasho isku day inaad soo saarto taas baa iga waana taana macnaheedu waxa weeye waa fikrad macnaheedu aan dhiibanayo laakiin qofan ku amray iyo qofan ma jiro أنا معنيه إسله لأن كانوا حد وجهي لنا سافنكي سويان تنسر كده. ما يويت هاي قفك وحني يدعو كشرة إن دم مرسو كبعد إنه حلقة بدض فربضن إني إرجع وضقاتانو هل هي سوف يدلي أي سو سارة نسوق يسلها دور هي سو دتسو سارتي إن وقت هاي جنتي يجب جودي برامج كن كوس صغيرنا ياسينو إن وحنوم هذا عدنية فهي سيدو كله إنجنير كبرامجك وستة يخضر أو سجنا قيب كها برامجك إن BC24 TV barnaamijka hibada hal abuurka waxaana marti igu ah Yaasiin Daahir Cumar Yaasiin adan kaaga tagay barnaamijka isla markaana waxaad ku soo xidhaysaa waxoogaa sheekadii maxaa la yiraahdaa
ninkii qaxoontiga ahaa iyo laantiisii dahabkayd ayaad waxoogaa kusoo xidhi doontaa weliba luuqadeennii kale ee faransiiska islamarkaana aad ku bilowday korna aad ugu qaaday dhaqankeenna iyo weliba sababaha ay u tahribayaan dhalinyaradu dad fara badan oo ajaanibana niyadoodii iyo qalbigoogii bedeshay sidaad sheegtay aniga iyo dhammaan BC24 oo isku duuban waxaan idiga tagnaa Balyaasiin aynu dhageysanay sheekadiisaas. Je vous parle en français parce que ça c'est une belle histoire concernant un jeune homme venant de l'Afrique de l'Est. Je vous conseille d'acheter ce livre et trouver partout en France et ailleurs parce que c'est un livre très intéressant, parce qu'il apporte des sujets très profonds. Ça vous éclairera, en fait, ça vous donnera l'occasion de prouver que ce livre, c'est un sujet très important parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi tous ces jeunes gens se jettent dans la mer. Mais quand en fait vous lisez ce livre qui est très très important, vous comprendrez pourquoi certaines personnes quittent leur pays ne sachant pas là où ils vont y aller. Peut-être que là où ils préfèrent vivre, c'est pire ou même en fait catastrophique parce qu'ils ne savent pas, à vrai dire en fait, si ce pays vaut mieux que leur pays. Alors moi je vous conseille de voir ce livre qui s'appelle Migrants avec sa palme d'or, car c'est un très bon livre qui vous apportera en fait certaines notions de comprendre en fait l'Afrique de l'Est et surtout la culture somalienne en général. Et je vous remercie beaucoup. Anigo halka kasii wada waxaad leeyahay macnaheedu waxaan u mahadcelinayaa Xamda adigu igu soo casuumay aad baad u mahadsantahay iyo dhalinyarta macnaheedu laftirkooda macnaheedu noo haya kamaradaha iyo injineerada anigoo halkaa uga mahadcelinaya gudoomiyaha laftirkiisa Cabdikariim Cabdirashiid raalli noqda hilmaamo hadal kuma jiro Cabdirashiid gudoomiyaha waa ku mahadcelinaya sida wanaagsan idigu soo dhaweysay waxaan rajeynayaa buugaana inaad macnaheedu idinka laftirkiina saan u akhrisaan dadkana ka dhadhicisaan inay akhriyaan wuxuu noqon doonaa macnaheedu buug macnaheedu idin furo maskaxda aad ku fahantaan Yurubta marka aad tagtaan laftirkiina waa tagi doontaan idinkoo noole kuna fakara inaad tagtaan macnaheedu idinkoo soo booqanaya wadamadaas idinkoo wadankiina jooga waxay idin saamixi doontaa inaad fahantaan dadka macnaheedu laftirkooda maaragtay wadamada tagiysaan sidii loola noolyahay laftirkooda fikrad buu idinka siinaya buugani aad baan u mahadsantiin. Assalaamu calaykum. wadan iyo sanbab wada midwiiq may xanuun wadan iyo sanbab wada midwiiq may xanuun